ilaa 6 wadan oo kala ah dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain, Masar iyo Yemen iyo Liibiya ayaa xiriirka u jaray dowladda Qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada. Inta badan wadamadaasi ayaa galaangal siyaasadeed ku leh Soomaaliya, waxaana laga baqdin qabaa in khilaafka qaliijku saameeyo Soomaaliya oo wali labada dhinac midna aan taageerin. Qoyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegaya in talaabada dowladda ay ka qaadanayso xiisada ka taagan qaliijka ay tahay mid u baahan in ay ka baaraan degto, isla markaana danta Soomaaliya ay ku jirto in ay dhexdhexaad ka noqoto xaaladda hadda taagan. Maxamed Mustafa oo ah qoyahan Soomaaliyeed ayaan weydiinay sida Soomaaliya u saameyn karto labada dhinac haddii ay mowqifkeeda soo bandhigto. hadda isbedelka cusub dalkeena ka dhacay iyo hanaqaadka hadda Soomaaliya ay ku jirto iyo xiriirka ay leedahay dowladda Sacuudiga oo dagaalka ay Qatar ku qaadayso hogaaminayso oo saaxiib dowladnahay oo hadda la sheegay inay ku maqan yihiin ilaa 7 wasiir oo si ay u dhaqan galiyaan xiriirka labada madaxweyne ee boqorkii madaxweyne ay soo sameeyeen in la dhaqan galiyo ka wada hadli lahaa iyo Qatar oo dowladda ugu dambeysay madaxweynaha uu booqdo ay tahay si gaar ahaan saameyn siyaasadeed ku leh labada xilli ugu dambeysay dowladdii hore iyo dowladda dambe ee ugu dambeysay ku leh si waa inoo taabanaya laakiin waxa loo baahan yahay farsamo sare oo ama diblomaasiyad aad u heersareysa in lagu dhaqmo dalal tabaalaysan jirsan kala ah oo codkoodii ku biirin kara laakiin aan hada saameyn la taaban kara ku yeelan karin haddii maanta Soomaaliya tiraado anaga Qatar oo jirna xiriirada kale mesela wax saameyn xooggan weyn ay ku yeelan karto male laakiin anaga cadaawad abuuraysa oo khilaafku gudbaya mantiqada Britole laakiin dowladda Soomaaliya cadaawad lama gudbaan ah ay ku noqonaysaa. Sida aan la wada socono, Soomaaliya waxaa taageero iyo ballanqaad u muujiyay dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku tagay halkaasi, taasi oo ah sababaha dowladdu ay ugu adag tahay in ay mowqifkeeda cadeyso. haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya? Waxaa isna ka hadlaya Maxamuud Cusmaan Baaltaag oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed. marka waxaan qabaa dowladdu inaysan ku degdegi doonin waxaan kale soo jeedinayaa inaysan go'aankaasi ku degdegin maxaa yeelay runtii dalalka Carabta runtii waxay u saageen inay xaliyaan inkastoo dalal badan ay xiriirka u jireen haddana wada hadal baa socda in arrinkaasi qaab diblomaasiya loo xaliyo. marka dowladdu waxaan qiyaasayaa inaysan ku haboonayn inay ku degdegto go'aankaasi. ma filayo in dowladda Soomaaliya awood u leedahay inay ka qayb qaadato dhexdhexaadinta maxaa yeelay kabaadsigii iyo ma aha dowlad runtii sal adag sida dowladaha Turkiga iyo Kuwait kale balse waxaan filayaa in ay dinteeda ka garato oo sida dowladda Cumaan oo kale oo runtii ciyaarta siyaasad dhexdhexaada oo aan dhanna u janjeerin xaggana runtii markii hadda dowladda Carabeed oo Sacuudiga horkacayo ay xiriirka u jireen dowladda Iran runtii Cumaan waxay ciyaartay door muhiim ah oo dhexdhexaada iyadoo xiriirka Iran uu wanaajinaysa ay halkan joogtay. marka waxa laga rabaa inay runtii dowladda Soomaaliya siyaasad u waafsan oo ku dhisan danaha qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed wax dantu ah inay ka fikirto oo aysan ku degdegin in go'aan runtii laab la kaca oo dham u jarjara hadhowna saameyntiisa keeni kara ay dowladdu ku dhaqaaqdo. Qatar waxaa laga xayiray hawada, dhulka iyo badda. taa beddelkeeda Qatar waxay hawo ka heshay dhanka Soomaaliya oo isticmaalayso. Hay'adda socdaalka Soomaaliya waxay sheegtay in diyaaradda Qatar Airways ilaa 15 jeer ay isticmaashay hawada Soomaaliya tan iyo markii ay dalalka Carabta ay xiriirka u jareen. Sarkaal ka tirsan hay'adda socdaalka Soomaaliya oo la hadlay wakaaladda wararka AB waxa uu sheegay ka hor inta wadamada qaliijka ay xiriirka u jareen Qatar waxay Qatar Airways hawada Soomaaliya isticmaali jirtay maalintii 1 ilaa 2 jeer. Maxamed Mustafa ayaa talaabadan u arka mid dood dhalin karta, laakiin Soomaaliya waxa uu sheegay in ay madax banaan tahay oo laga doonayo inay qanciso dhinaca kale. طبعا anaga dowladda Soomaaliya ahaan ama dadka Soomaaliyeed markaan dhinaca ka fiirinay hawada Soomaaliya gacanteena kuma jirto si guud ahaan inay marka ka faa'iideystaan walaalahan Carabeed Qatar waad culays ku kaayo aday anaga noogu fiican tahay laano isha kaliya had u furan inay isticmaali kartaa ay tahay arintaas waxa laga yaabaa marka inay ka dhalato dhinaca kale inay dhaliso dood ah say u arkayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka in hawada Soomaaliya ay Qatar isticmaasho taas marka ay timaado dowladda Soomaaliya dowlad siyaasadeed ay madax banaan tahay waaye tilaabada ay qaadan karto iyada marka waxa laga rabaa inay qanciso dowladaha laga yaabo inay aada ka keenaan maxay u isticmaalaysaa hawadooda dowladda Qatar ku soo dhaweyso inay isticmaasho hawadeeda iyo waliba inta ay uga baahan tahay hawada kaliya ma adeegyaha dowladda Soomaaliya ay u qaban karto Qatar inay u sameyso
hadda kaliya maahna waa soo jirta Ciraaq berigi ay weerar jirtay Kuwait dad badan oo Soomaaliyeed meeshaas deganaa oo nolol ku lahaa ayaa waxa jiray in maalqabeenadii Kuwait ay badbaadiyeen hantidooda ay isku qoreen kadibna ay dib ugu celiyeen marka dalal badan oo saasoo kala ah Soomaaliya beri hore abaal u soo galay way jiraan dad badan ayaa ka dhowr sugaya mowqifka dawladda Soomaaliya ee khilaafka khaliijka iyadoo aan la soconay in dawladdii hore iyadoo qancinayso Sacuudiga ay xiriirka u jirtay dalka Iran Abdullaah Maxamed Ibraahim Goobjoog Muqdisho.